السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo waa naswada kram maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax oo gaslighting la dhaho gaslighting run ahaantii hal mar ka badanaa lay weydiiyey inaan gaslighting ka hadli karo which is very interesting inaan gaslighting ay rabaan inay ogaadaan dadkeena iyo daawashayaalkeena gaslighting horta run ahaantii kelmad oo af soomaali ah hadda ku fasiri kara ma aqaan yani laakiin gaslighting badanaa waxaa laga helaa dadka oo cilaaqada ka dhexeyso ama relationshipka nin iyo naagtiisa nin iyo gabar iyo wiil isjecel adi laba qof oo xiriir ka dhexeeyo badanaa gaslighting waxa waaye nooc oo waxa ka mid ah emotional abuse markii la dhahay so qofka oo emotionally abusive ah ama dadka cadaadisa dhinaca dareenkooda waxa waaye gaslighting techniqueyaalka ee isticmaasho ay ka mid tahay so marka gaslighting markii ay qofka suubinayso waxa waaye qofka maskaxdiisa qofka waxay isku dayaysaa qofkan inay shaki geliso oo shaki ee waxa ka gelisa dhinaca waxaan like reality questioning waaye like waxaan run miyaa mise been horto waxay ka dhaadhicinaysaa qofka wax jiro inuu jirin so waxa camal badanaa hadallada ay isticmaalaan waxaa ka mid ah no indhahaaga waaye may saas aniga kuma dhihin may adaa u malaysa waxaas wixii dhan waxay ka dhigayaan qofka inay waalan tahay camle oo dhaqmayaan qofka inay qof caadi ahayn oo waxyaabo badan ay u malaynayso camal so waxaaseeta aan kuga arkay may iguma arkin waxaasoo balantaas ma iga qaadin oo kama qaadin balantaas ani maba xasuustay waqtigaas goormay ani adi waxaas ka hadalna ay dhahayaan waxaa hadda soomaalida fiiriyo gaslighting badanaa ani markaan arkay waxa waaye in situationyaalka oo markuu ninka masalan naag kale arooso oo naagtiisa ku inkiraayo ama ay dhahdo waa kuga arkeen ama hiblaayo soomaalian la soconin ama shalayto meeshaas markaan socda xaggaa fadhisaaday hiblaayo ma ahayn oo qofku la socotay no ma ahayn indhahaaga waa maba aqaani hiblaayo ahayd see u egtaan horta hiblaayo aa dhaha so badanaa like ninka markuu naag arooso wuu ku inkiraa naagtiisa inkiraadaaseeto min runtii beenta dadka dhan been way sheegaan laakiin markay noqoto calculated been oo hadaf loola jeedo oo markasta still beenta lagu soo celinayo oo dhahay may adaa u malaysay may saasay kula noqotay may waxaas wax kama jiro indhahaaga waaye waxay noqotaa heer waxay gaaraysaa marka qofka oo waxaas lagu suubinayo inay dhibaatooyin la kulanto dhibaatooyin oo masalan yani qofki inay iska shakiso inay maskaxdeeda horta ani caadi ma ahay wax ma iga qaldan inay dhahdo ay isweydiisa dhici karto qofka kalsoonideeda ka shakin kartaa so alla rabtaa mis qofka waxay dhahaysaa araman waxaas inaan suubiya ama waxaan inaan dhaho because maba isku kalsooni ma hubi inaa يعني waxyaaba badan oo suubiyo oo been noqotay aa jirta ama run ahayn ama ani u maleeye so qofkii waxay aaminaysaa ninkii oo saas ku samaynayeen nafteeday marka ka shakinaysaa and badanaa dadkaasita also waxay ku dhaco cudurada oo like depressionka camal because se shakigii markuu ka bato oo waxay u malaynayaan inay qof caadi ahayn oo wax ka qaldan yahay so markaas cudurada depressionka laga helaa iyo kalsooni yaraanta sida lagu gartaa qofka marka inay gaslighting ugu sameynayso so calaamado badanaa jirto oo lagu garan karo qofka haddii technique oo gaslighting ay isticmaalayso mid waxaa ka mid ah inay qofka isticmaasho waxyaabaha oo aad ka cabsatid so masalan again sida aan dhahnay emotional abuse waaye so qofka masalan haddii aad tahay dumar masalan oo necab inaa masalan cayilka ama cayilan tahay laakiinsto aad isku kalsoonin because cayilkaaga qofka oo gaslighting kugu suubinaysa maybe inay isticmaasho taasi ee aad ku manipulate garaysa ama si ku abuse garaysa so maybe waxyaabaha camal inay dhahdo oo fiiri heblaysay waa caataysan tahay camal so they know qofka already ina aad naftaada shaki qabtid ama aadan ku faraxsaneen kasto inaa cayilsan tahay ama ka xishootid weydkaaga dartiisa so waxay highlight garayhayaan dadka oo caataysan camal ama yani waxyaabahaas isticmaalayaan si ay adi masalan always hoos ku dhigaan maybe waa cayshay ku dhahaya because way ogyihiin taas inaa dhibsanaysid
mid kale ay soo bixayaan waxa waaye naftaada anaaba ka aqaano ay kaa dhaadhicinayaan you know waxaanay ku fiicanahay ku fiican tahid anaa ka og naftaada anaa ku aqaano more than aad istaqaanidaaba lagaa dhaadhicihano so marka waxa waaye naftaada anaa kaa og miiga ogtid haddaad dhahdid waxa waaye waxay noqohaysaa nope waxa waaye adi wax ma kala ogtid anaa ka og hadda ka horba qaladkaas waa gashay hadda ka horba saas waa u malaysa hadda ka horba saas way kula noqotee don't worry about anaa ku jecel anaa ku ilaalihaayo anaa ku sheegaya jidkaa maraysid anaa ku saxaayo waaye which is a form of again technique oo waxa waaye manipulation iyo qofka inaa la qaldo waxa kaleeto ay suubiyaan waxyaabihii oo qaladka ahe sax waay ku dhahayaan so something aa og tahay inuu habboonayn waxay ku dhahayaan no wax weyn ma aha adaa qalad u aragtee adaa qalad u maqashee maya heblahay waa iska sheekaysanaynayle wax ma naga dhexaynin wax weyn ha ka dhigin aday sensitive saasaa u noqonin you know like adaa naftaada mu kalsoon tahid that's why waxaa umalayhaysaa haddaan naagla istaagaba inay irabto ama inaan rabo may waxaas wax kama jirin so again shakiya waxaan caadi ahayna caadi lagaaga dhigaa oo adi indhahaaga aa ku aragta waxa lagu dhahaa nope waxba kama jirin adi waaye maskaxdaada waaye nope mida kaleeto waxaa questioning your sanity waxa waaye maskaxdaada horta juusta ma tahay mismay ee shaki kaa gelihayaan so marmar waxay ku dhahayaan no adaa fuliska adaa wax kasta ka cabsanaysid adaa wax kasta ka shakinaysid adaa too sensitive you know waxa waaye aadaa qof oo sensitive oo emotional ahaa tahay ay ku dhahayaan run miya waxa waaye ad marka waa iska shakinaysaa waxaa dhahaysaa kaale oo nimaa sensitivekii la sheegaya mise wax ma ii khaldan mise dadkaneeto qaldan maxaa kaleeto sida aan dhahna waa forgetting ama forgetfulness ay iska dhigayaan dadka oo gaslighting suubiyan so masalan balanay kaa qaadayaan balantaas may ka qaadin oo hadad ma xasuustiyaa lagu dhahaa ma ka hadlin ani aadi waxaasayto gorma iskuula imaana mawduucaasayto ay noqonaysa of course beenta caadiya u tahay ika so waa been ku sheegayaan wax kasta ay ku sheegaan been waaye because obviously danay leeyihiin qofka oo gaslighting suubihaysa danay leedahay basically qof oo gaslighting qofka sameeyhaysa malaha iyadoo hadaf ama ujeedo lahayn so markii qofka la gaslight garaynayso ujeeday leedahay ama qofkaanita inay indha tirta dhiga tirta si ay u marsiiso wax wadanteeda like gaslighting kelmada loo aslan waxay soo baxday mar hore kelmadaha like 1960skii soo baxday waxay markii first time ay soo baxdana waxay ahayd nin oo raba naagtiisa inuu dhaco maalkeeda oo wuxuu isticmaalay ama sameeyey gaslightingka uu ku sameeyey which is basically naagtiisa waxyaabo badan oo like wuxuu meel dhigaa haddana wuu ka qaadaa wuxuu dhahaa markaas wixii inta yaala markay dhahdo waxa meeshan ma oo dhahaa so ada heer oo wuxuu gaarsiiyey naagta inay isbitaal gasho oo way waalan tahay la dhaho so u wareerinayay marba wuxuu meel u dhigaa marba codow u keenaa oo daaraa hadhowta codkaas maqluuso haddii dhahad mayma maqluuyo dhahaa heer oo wuxuu gaar naagta isku dardarsanto isbitaal la geliyay which is a very common way a lot of times ay dhacday niman oo naagaha gaslighting ku suubinayaan si ay u dhahaan naagtan wayba waalan tahay an hadhowtid waxay iska dhigayaan the rescue war ninka fiicnaay oo naagta badbaadinaayo oo xataa markay isbitaalka gasho anaa kula jooga makaa tagin dhahaayo xataa waa waalan tahay markaa waalid isbitaalka kula joogayaa kaa soo bixiye so waxa waaye technique waay again say u isticmaalaan ay uga faa'iidaystaan naagta sida aan dhahay gabdhaha ama xataa hadday jirto naag oo gaslighting suubinayso qofka oo gaslighting lagu suubinaayo dhibaatooyin oo waxay la kulantaa kalsooni la-aan iyo depression ka mid maxaa laga qaban karaa it's a very good question basically wax laga qaban kara waxyaaba badan maahaba qofka inay focus garayso iska hubiso waxay suubinayso si oo shaki loogu gelinin mida kale waxa waaye qof aa aaminaysid inaa kala hadashid si ay u jeg garayso waxyaabaha neeto oo like waxaan u jeedaa waxaan ma maqlooyaa markii ama sanada qofkaas hebel iyo heblaay miya ama you know hada masawiraa jiro masawiraa ka qaadan kartaa waxaa suubi kartaa a lot of things but basically waxa waaye qof inaa la tashid aaminaysid oo ku sheegi karto wixii run ah iyo wixii been ah ku kala bixin karto waxaa kaleeto therapist inaa la hadashid because again
mo qofka waxaa suubinayso relationship oo waxay ku jirtaa abusive relationship so runtii domestic violence markii laga hadlayo noocyo badan uu leeyahay taasna way kamid tahay so inaa marka therapy la hadashid oo fiirsatid qofkaaneyta oo saan iyeelooso ujeedadeeda maxay tahay maxay igaga baahan tahay eesaan igu galowsaa iyo sidii aan uga baxsan lahaa inaa ka hadashid waa intaas oo gaslighting ah waa mahadsantihiin haddaad taqaanid kelmada gaslighting af soomaali maxaa lagu dhahaa please hoos kusoo qor because I tried inaa helo laakiin waa heli waaye and I don't know kelmad oo equivalent ah so hoos igu soo qorsaa ana kaaga faa'iidaysto waa mahadsantihiin ha iloobin inaa share subscribe iyo like aad dhahdiin and waa intaas iyo waa naswada kram salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu